بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب والاليال وولالكم فتحي iyo darsigeennii saddexaad oo ka mid a duruustii aynu ugu tala galnay bal inaynu wuxuu rabbi naga waafajiyo isu soo gudbinno, taasaynu ugu magac darnay fadlu cashri alawali min dilxijati wa axkaami alciidi waaludxiyati wa ayaami tashriiqi. qodobka shanaad buu inooga bilaabanayaa haddii ilaah yidhaahdo darsigeenna saddexaadii. ciwaan waxaan oga dhignay oonu darsiga saddexaad aanu doorannay inuu noqdo axkaamu alciidi waaludxiyati wa ayaami tashriiq. ciidda iyo axkaamta ay leedahay iyo udxiyada si guud iyo maalmaha ayaamu tashriiqa loo yaqaano ama hilbawadhadka. waxaan jeclahay inaan marka hore ku horeeyo haddii ilaahay yidhaahdo makaanatu yowm alciidi aladxaa fi lislaam. qiimaha iyo qaayaha iyo mugga ay ku dhex leedahay yowm alciid aladxaa, maalinta ciiduladxaagu islaamka dhexdiisa miisaanka uu ku dhex leeyahay iyo maqaamka iyo meeqaanka iyo martabada uu ku dhex leeyahay. yowmu nnaxri aw yowmu ciidi aladxaa huwa afdalu ayaami addunyaa wa annahu afdalu calaa yowmi ciidi alfitri wadalika lianna ciidi aladxaa fiihi salaatun wannaxru wa ciidi alfitri fiihi alsadaqatu wassalaatu wannaxru wassalaatu afdalu من الصلاة والصدقة. ولهذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل شكره لربه وأن يصلي لله وينحر. وقيل له في سورة الأنعام قل إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. maalinta yowmu ciidul adxaa islaamka dhexdiisa ama yowmu naxriga loo yaqaano waa maalin qadarin iyo qiimo ku dhexle. waa maalinta maalmaha ugu fadliga badan ama maalinta ugu fadliga badanba waa maalin ka fadli badan maalinta ciidulfitriga loo yaqaano, sababtoo ah ciidul adxaa laba arrimood bay kulansataa: salaad iyo naxri oo ah gowraca ama dabxiga, in salaada ciidda la tukado iyo in xoolo la qalo. maalinta ciidulfitriguna laba arrimood bay kulansataa: waa sadaqa oo sakaatulfitrigii ah iyo salaaddii oo salaatulciidda ah salaada ciidda ah. sidaa daraaddeed sadaqi iyo salaad waa ciidulfitriga, naxriga ama gowraca iyo salaadna waa ciidul adxaa. gowracaasi iyo salaadaasi way ka fadli badan yihiin min asalaati waasadaqa, way ka fadli badan yihiin oo ta ciidulfitriga ah. sidaa daraaddeed ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa nabigeenna sala allahu calayhi wasalam alla ku amray inuu magaran haysaa ku shukriyo rabbigii subxaanahu wa tacaala inuu siiyey webiga kawtharka lagu magacaabo ilaahay subxaanahu wa tacaala في سورة الكوثر
ama fii suurati inaa actayn hadba kaynu inagu u naqaano webiga jannada ee alla ku sheegay siismada uu alla siiyey inuu ku shukriyo daraaddeed iyo inuu weliba ma garan haysaa rabbigii subxaanahu wa tacaalaa u tukado una qalo xoolaha waa ciidulfidrigii waa fasalli lirabbika wanxartii weeye fasalli lirabbika wanxar inaa acطaynaaka alkawthara fasalli lirabbika wanxar ina shaaniyaka huwa alabtar marka inuu u tukada rabbigii laa ligayrihi haddana u dhuun dhawo oo uu wax u gowraco isaga waa ciidul adxadii cid kala samaya sidaas ayaa nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam shukri looga dhigay uu maaragtay ku shukrinhayo webiga kawtharkee la siiyey sidoo kale alla wuxuu nabigiisa calayhi salaatu wasalaam ku amray oo uu ku yidhi nabi moxamedow markuu nabigu uu ma garan haysaa webiga muxuu ahaa markuu alla subxaanahu wa tacaala uu kawtharkaas nabiga loogu bishaareeyey shukrigiisa maaragtay rabbigaa u tuka la yidhi xoolahana u qal ayaa alla subxaanahu wa tacaala fii suurati alancaam labada aayadood ee 162 ilaa 163 wuxuu leeyahay alla subxaanahu wa tacaala qul ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii lilaahi rabbi alcaalamiin laa shariika lahu wabidaalika umirtu wa ana min almuslimiin waxaad dhahdaa salaadayda tukashadayda cidda aan u tukan hayo ama aan wax u gowracayo ina salaatii salaadaydu wa nusukii iyo gowracayga wa maxyaaya noloshaydu wa mamaatii geeridaydu lilaahi rabbi alcaalamiin allah subxaanahu wa tacaalaa ayaa intaba iska lehoo ay u sugnaadeen rabbi alcaalamiin allaha uunkan koonkii maaragtay muxuu ahaa koonka allaha boqorkiisa ah laa shariika lah cid aan cibaadadiisa la wadaajinhayo hadday baryo tahay iyo hadday ficil iyo qowl mid kala tahay nooc dooniba ha noqotee cid aan cibaado rabbi leeyahay la wadaajinhayaana ma jirto wabidaalika umirtu sidaas ayaa lay amray inaan saa yeelo oon anigiiyo shirki kala beri noqonno alli iyo khalqigiisana waxba isugu darin wax eebba leeyahay in loo doonto mudan yahayna aana khalqigiisa u raadsanin wa ana min almuslimiin aniguna kuwa maaragtay isdhiibay ee rabbi u hoggaansamay ee muslimiinta abaan ka mid ahay qowlan wa ficlan ugu hoggaansamay darsigeenna intaas ayaan ku soo koobayaa waxa weeye waa darsigeenni saddexaad wixii aan asiibay waa ilaahi subxaanahu wa tacaala waafajintii wixii aan gafayna waa aniga iyo daalibnimadayda iyo fahmi gaabnidayda wallahu aclam wahuwa waliyu towfiiq waasalu allah alcadiim rabbi alcarshi alcadiim an yajcala camalana khaalisan lilaahi naafican licibaadihi inahu qariibu mujiib waakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wassalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu